waxa la yiraahdo qabyaalada iyo qabiilka faraqa u dhaxeeya iyo liidashada qabyaaladu ay marka ay liidato oo wax sharciga dhaxdiisa la inoogu diiday inay tahay iyo inaynu bal isxasuusino mashaakilaadka ay xagga dambe ku wadato qabyaaladu iyo waxyaabaha sabab u ah qabyaalada marka koobaad qofka looma diidin inuu cid ku abtirsado bal waaba ku amaanan yahayba inuu qofku abtirsiin yeesho abtirsiinsiisa xifdisan yahay abtirsiintiisa garanayo meesha uu ka soo jeedo xuquuq badan baa ku taxalluqda qofka la garanaya waa la isu dhaxlayaa waa la isu xiriirinayaa xuquuq badan baa ku xasilaysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi abtirsiintiina ka waxa ka barataan inta aa qaraabadiina ku xiriirinaysaan maxaa yeelay qaraabada oo la xiriiriyaa ehelku waa isku jeclaadaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ninba ninkuu ka qaraabo xiriirin badan yahay oo ehelkiisa uu ka xiriirin og yahay ayaa ehelkiisu ka jecel yihiin qaraabo goyska cidi ma jecla ilaahayna subxaanahu wa tacaala suu rasuulku tilmaamay waciid adag iyo goodi adag baa loo yaboohay maxabbatun fi lahl ehelkaa isku jeclaada buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam risiqa in qofka loo waasiciyo oo loo ballaadhiyana arrintaasi sabab bay u tahay cimrigiisu inuu u dheeraadana sabab bay u tahay bal xiriirintu horta ha dambayse garashadii baa maanta liidata qofku qaraabadiisa inuu garto qaraabaduna laba dhinac bay ka timaadaa waa nasaban wa sihra xagga tolka iyo xagga xididka intaba labadaba waxa weeyaan waa qaraabo weey abtiyaasha seediyaasha waxa weeyaan inta ku xiriirsan adeerka walaalaha ilmaadeerada inta ku xiriirsan taa qofka looma diidin waa kaa nabigu saa u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa sugan ghaswatu xunayn markay ku jireen dagaalka inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku dhaadinayo uu lahaa ana annabiyu laa kadib nebi baan ahoo beenna maaha buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam inaan cabdulmutalib baan ahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaanu amray maalintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam in markaa waxa weeyaan lagu baaqo oo markaa la yidhaahdo maxay qabiilkii la odhan jiray markaa waxa weeyaan khasraj ee ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay isagoo ku gaar yeelay xaarisa reer xaarisa waxay ahaayeen niman markaa 80 taqriiban 80 nin ah yabluquuna 80 wa kaanuu min ashjaci innaas geesiyaal bay ahaayeen oo marka jihaadka lagu jiro marka waxa weeyaan cadowga la iska dhicinayo gaalada waa loo baahan yahay qofku inuu markaa waxa weeyaan cidda lagaga gabanayo uu markaa waxa weeye sheegto laakiin ta la diiday waa maxay waa ta maanta inaga dhexdeena caanka ka ah waa ta qofka lagu qiimeynayo qabiilkiisa wanaag kasta hadduu sameeyo khayr kasta hadduu la yimaado halbeega iyo cabirka dadka ay sitaan in badanoo ka mid ah ilaa man raxima rabbuk qof ilaahay u naxariistay mooyaane waa halbeega qabiilka waaryaha ninku fiicana tolo waa ayo waa reehbe taasaa dishay taasaa dishay buu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka waxa uu ku yidhi yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dadow annagaa idin abuuray waa run makhluuq walba ilaahay baa abuuray oo khaaliqiisa ah allahu khaaliqu kulli shay waxaan idinku abuurray baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala lab iyo dhidig dhexdood baan idinka soo saaray aabbe iyo hooyo abuunaa aadam iyo ummunaa xaawa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga abuuray xaawana nebi aadam baa ilaahay ka abuuray oo asalkiisu ciid ahaa ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala shucuub iyo qabaa'il baan idinka dhignay qabaa'il isu tegay baa shacab noqda qabaa'il isu tegay iyo qabaa'il isu tegay ayaa ummad noqda oo shacab noqda maxaa laynooga dhigay litacaarafuu saa isugu garataan saa isugu xidhiidhisaan laa litafaakharuu maha si la isugu faano iyo si la isugu dilo iyo si la isugu liido iyo si qaar loogu xaqiro laa litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum alla agtiisa waxa idinku qiimo badan waxa idinku sharaf badan waxa idinku wanaagsan ka idinku alla ka cabsiga badan baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa ka digay markaasaa wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam laysa mina man dacaa calaa casabiyah laysa mina man dacaa bicasabiyah walaysa mina man qaatala calaa casabiyah walaysa mina man maata calaa casabiyah
annaga naga mid maaha buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka markaa waxa weeyaan qabyaalad iyo calan qabiil ku baaqa ee taa waxa weeyaan dadka ugu baaqa kaasi naga mid maaha dayru uga yahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka ku dagaalama qabyaalad naga mid maaha buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka ku geeriyoodo ku dhinta naga mid maaha buu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal way soo noolaatay iyadoo dadku waqti maanta horumar xagga maadiga ay gaadheen iyadoo dadka loo tuumayo inay aqoon badani jirto ayaa haddana maanta say u soo noolaatay waqtiyadii hore may ahayn aad iyo aad bay u noolaatay oo loo soo nooleeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mar kale xadiidka markaa waxa weeyaan xaaris al-ashcari radia allahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam imaamu axmedna uu soo saaray ee weliba saxiixa ah imaamu albani uu tasxiixiyey waman dacaa bidacwa aljaahiliya fahuwa min juthaa'i jahannam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka ku baaqa yeedhmadii jaahiliga ahaa qofka ku baaqa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xaaba jahannamuu kaasi ka mid yahay jahannamo xaabadeed iyo markaa waxa weeye qashinkeed weeye markaasaa waxay ku yihi rasuulka ilaahu qaaluu yaa rasuula allah wa in saama wa sallaa haddii uu tukado markaa uu soomana wa in saama wa sallaa wa zacama annahu muslim hadduu doono ha soomo ama ha tukado hana sheegto inuu muslim yahay fadcu lmuslimiina biasmaa'ihim bima samaahum allah war dadka waxaa ugu yeedhaan muslimiinta magacyada ilaahay u bixiyey tabaaraka wa tacaala almuslimiin almu'miniin cibaad allahi caza wajal addoommihii ilaahay mu'miniintii rabbi taa ugu yeedha buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday nebigu calayhi salatu wasalaam in la isu faano oo qoloba qolada kale markaa ay isha ku guddo oo la xaqiro oo qofka la liido waa dhaqamada la diiday imisaa maanta qof laabta garaacaya oo abuurka tufaya oo aan isweydiinaynin hadalka noocan aad u hadlaysaa iyo waxaanaad ku baaqaysaa shareecadu ma ku fasaxday maxaase kaaga iman karaa raadka xunee ka dhalan kartaa muxuu yahay yaa subxaana allah wuxuu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina allaha awxaa ilay an tawaadacuu xadiidku muslim saxiixiisa ku jira ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yabqi axaduna cala axad walaa yaftakhira axaduna cala axad alla waxa uu ii waxday buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam oo iigu kiin soo dhiibay inaad ilaahay isu dhul dhigtaan tawaaduc addoonku inuu walaalihiisa kalena aanu xaqirin oo soomaali waxaa tidhaha rag garabkaagaa laga eegay gadaashaada lagama eegee aanu liidin oo aanu xaqirin ilaahay inuu isu dhuldhigo xaqa inuu u hoggaansan yahay marka xaqa loo sheego inuu xaqa ku joogsanayo inuu noqon waayo mid beriig la qabtaba aan yeelanin ma aha ilaahay ka cabso marka leedhaa oo aayad iyo xadiis la hor dhigo waa inuu qofku joogsan karaa halkeen maanta lasla maraya ilaa man raxima rabbuk ilaahay wuxuu ii waxyooday buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam inaad ilaahay isu dhuldhigtaan oo tawaaduc la timaadaan mar wal oo qofku tawaaduc la yimaad ilaahay isu dhuldhigo ilaahay subxaana wa tacaala aakhiriya adduunyaba daraja ayuu ku korraysiiyaa mar kastuu qofku iskibriyu isweyneeyo uu kor isu qaadana ilaahay subxaana wa tacaala waa daadajiyaa hoos buu u dhigaa ilaan cidda ilaahay sarraysiiyo ayaa korraysa cidda ilaahay hoosaysiiyana waa hoosaysaa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ina allaha yafcalu maa yashaa mid ilaahay dulleeyey rabbi hoosaysiiyey xumaanta iyo macsiyada uu sameeyey sababteeda rabbi ku hoosaysiiyey cid maamuusi karta oo sharfi karta oo kor u qaadi karta abadan ma jirto ayaa la ilahi subxana wa tacaala inaad ilaahay isu dhuldhigtaan baa ilaahay ii waxyooday buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa aan qofna qofka kale aanu markaa waxa weeyaan u faanin oo aanu ku xadgudbin ayuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaar labadii qaybood oo qiimaha badnaa muhaajiriini waa raggii ka qaxay magaalada maka ee diinta koryeelkeeda u qaxay dalkoodii bay ka qaxeen dunyadoodii bay ka tegeen dadkoodii bay ka tegeen fii sabiili illaahi bay u qaxeen haddii maanta innaga in badanoo dadkeenna ka mid ah fii sabiilihum guri ay u qaxayaan oo diintoodii iyo dalkoodii iyo markaa dadkoodiiba ay ka tegayaan oo gaalada xaggooda ay u socdaan iyagoo hunguri iyo qaxwo u socda iyo adduunyo dadkaasi waxay ahayn kuwo dalkooda iyo dadkoodii iyo markaa dunyadoodiiba ka yimid liajli diinta darteed u soo qaxay iyo koryeelkeeda ansaarina waa raggii madiine markaa waxa weeyaan soo dhoweeyey ee u hiiliyey ee ku sugnaa
markaas waxa dhacday waqtigii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyagoo qasway markaa dagaal lagu jiro ayaa laba nin baa isaf dhaafay in ansaarta kamid ah muhaajiriinta kamid ah faqadib al-ansari waxbuu ku dhuftay kii kale dibadna waa cadhooday kii ansaariga ah markaas la isu baaqayba yaa lil ansar ya ansaaray المهاجرين في كان لو يا مهاجرين أرنتي أبا كروك عذبا مركز رسولك عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة وارس كتك ويوريساي ويوريسا وحنا كوان لسان ويوريسا كتك أبو النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أخرى رواية كلا حديث كلا وحوها أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ومن يرمدي الجاهلية أيا لسون ديبسون ورين السلام كل واقع سنبول يا رسولك عليه الصلاة والسلام أنا قول دحدينا جوجا متفق عليه ويرمى جاهلي مفاسد فربنا ويوضتها حاجة طبعا إن شاء الله تعالى كون شارطونا مركز الرسول عليه الصلاة والسلام حديثك أبي داود يا ترمذي من حديث أبو هريرة والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى إلهي ويناي ونكسناي قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إلهي وحيد ككحيي نحلقيا نعيفشي جاهلية ده أيا إلهي دين ككحييو إيمانك يا إسلام لماذا رب سبحانه وتعالى دين ككحيي وفخرها بالآباء يا أبياشي لقو مركا حويا لقو فاني ريه بالبانا لايدا ريه بالبانا لايدا كمك كلا قيمة بدنا كتا عيد با إلهي النبي إلهي هذا إلهي كأبو ميل قرئ أدومك سوى ذا كذا مدبك إليه يموق إليه يحجبك يشركو ذا كمك لو أناك سنة الله كعبسي إيمان بيكو كلا قيمة بديه آبياشي مركا كفاني سننا كتكتار إلهي وحيد كاكي حي إسلامنا مدي فالناس مؤمن تقي وفاجر شقي داتكو على بقى يبدو الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمن تقي مد إلهي الرميسان أو تقية يا فاجر مجرم إلهي سبحانه وتعالى كقعي شقي يقول درستي أنتم بنو آدم إلما بني آدم باتهم بقى يا رسول عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب نبي آدم نعيد إلهي سبحانه وتعالى كأبوري ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هو فحم من فحم جهنم رجوي كتجوا ويسكتين بالنبي عليه الصلاة والسلام فانك أي كفانيان قليء أضيال بركة وحويا حابة جهنم النقضي ويكتج دون أبو رسولك عليه الصلاة والسلام أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن نبي عليه الصلاة والسلام ويسكدين دونان رب أو يكتجي دونان فانك أبياش هذا يكفانيا أبيال بري هرد أنت أيوة حابجها نبى نقضي أما إلهي أكتي سواء كل دن دونان بحال كلا رحار والوالك أمريكا وحوي السحرة ضدك أنتوا قيب سوق قوست أو ساو ملاسو سنكي سكوك حياة وساموالد يتلمامي وح أدقاي أدقون كامركم مركا أدقون وطريمه إنه أدقون كابا كلنتو نوع عاسكم مثل رسولك عليه الصلاة والسلام أو علماء واحد تلابن إلا يقوم مثلي قفك الليل والنهار قبيالة كل احترام إنه يحقف قرون كان ريحانية قبيالة وحكو قيبنية قبيالة وحمركا وحويا كوكا لدويسنية قبيالة سقوه هيرينية قبيالة كحريرينية قبيالة كوغوينية كاسو كدغيا ساسوت ما رسولك عليه الصلاة والسلام سادرتيد وقتiga way badatay aad way u badan tahay maxaa taro halka inagu gaarsiiyay qodobo dheer inuu sheegi doona aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد قفك بهاشن كشقيسته هريها بين بكو باقيا وحكدغيا هي مد فرشر سته نبينا وحده عليه الصلاة والسلام إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر وإن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر فطوبى لمن كان على يديه فطوبى لمن كان مفاتيحا للخير على يديه وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يديه أخرجه ابن حبان وحسنه الألباني رضي الله رحمه الله تعالى نبي قول عليه الصلاة والسلام ضدك وحكم ذا قار فرو خير خيرك فروء
وحلا وحي وناقي فرؤيهين توحيدك إنه فافو إلهي يقول لك يا إني فافتو يدك قاعدو طاعة إني فافتو سنة إني فافتو خيرك وناقي إنه فافو محبتي كالقعيل كتدك دحدود المؤمنين تدحدود إنه كفافو وناقي إنه فافو أيو فرؤيه هي ودتك قاري فرؤيه رسولك عليه الصلاة والسلام دتك قاري وحي فرؤيه شركه إنه فافو بدعاده إنه يصنولاتي خرافات وحان دين أهين إن دتك الدين لوغا دغو دينتي صافقه هيدي سندي قيمها بدنيدنا laga tago dadka qaar bay arintaas shaqo u tahay naxliga iyo nacaybshiyaha isku dirka kala kaxaynta dadka muslimiinta isku xudhaynta iyo xumaanta in laga shaqeeyo waa fura sharci dadka qaar bay u tahay buu leeyahay rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxa weeyaan dhaqanay u tahay oo mafaatiixa li sharra khayrkana markaa qof low ah nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam fatuuba jannadii wanaagsaneed iyo geedaa jannada qiimaha leh waxa leh oo ilaahay markaa waxa weeyaan u siinaya ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam qofka ilaahay gacantiisa ka dhigay gacmihiisa ilaahay qofka ka dhigay markaa wax fura khayr wa waylun waadi jahannama ku yaal oo naarta ku yaala iyo hool iyo halaag wuxuu sugnaaday qofka gacmihiisu ay noqdeen fura shar oo waxa weeyaan khayrkana markaa qof loo ah maanta imisa qof shar ka shaqeynaya oo shar nashrinaya oo faafinaya oo dadka sabab ugu ah marka la wuxuu xusay rasuulku kaleey salaatu wasalaam kama fi sahih muslim min hadith abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu wa ardaah arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyah la yatrukunahun afar waxay kamid yihiin arrimihii jaahiliga buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ee islaamka hortii jaahiliyada ahaa ka tagi maayaan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam al-fakhru fi al-ahsab dadku inay aabayaashoodii awowyaashoodii ardaayadooda ku faanaan oo ninku faanu ka dhigo reer hebel baa nahay isla maanta muuqata ee dadku ay la soo hor joogsanayaan dadka kale wadacnu fil ansab iyo dadka kale inuu caayo oo nasabkoodii iyo qabaa'ilkoodii reeraha ka soo jeedaan ku caayo wal istisqaa'u bin nujum xidigaha in lagu roob dalbo oo waxa weeye xidigaha lagu roob dalbo iyo niyaaxada iyo baroorta markii cidi geeriyooto afartaasi arrimihii jaahiliga ka mid yihiin dadkuna ka tagi maayaan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam idan inuu qofku faano uu reerkooda ku faano reer hebel baana la yiraahdo anagu reer hebel baanu nahay reer hebel dadku reer halbeega iyo cabirka ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomaha u dhigay waa maxay ee diinta islaamka u dhigtay waa maxay qofna qofka kale ardaa uu ka soo jeedo kagama qiimo badna وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا سورة النساء سورة السبع الله وحده تبارك وتعالى وإلى حوله أبتكينا حولهنا ما أهمد إلهي سبحانه وتعالى أقول دوانيسان أو دوان شهد إلهي أقول دوانيسان دد الدنيا دد هاي ستان تاسي صابدينكم أها مع إلهي لو قد وادا إلا من آمن وعمل صالحا ددك سيوك الإيمان ويهين سيوك العمل وناقسيهين سيوك الإحسان بديهين أي الله سبحانه وتعالى وكاللويش marka walaalayaal arintaasi waqtigan xaadirka aad bay u badatay maxay inagu soo nooleeyay xadka inagu gaarsiiyay waxa kamida kow jahliga dadku diinta marka ay jaahilka ka yihiin oo dadka in badan oo kamida diinta jaahil bay ka yihiin jahligaas wuxuu keenayaa wax fara badan oo xumaana qofku inuu madax u galo maxay yeelay ma yaqaanaba waxba ma yaqaano diinta Ilaahay waxba kama yaqaan maadiga uu yaqaana waxa laga yaabaa inuu jaamacada ka soo baxay bi ajri inuu haysto shahaadada u sareysa laakiin markay diin noqoto wax alla wuxuu ka yaqaana ma jiro tahaarada ma yaqaano dadkuna aqoonyahankaas ay u yaqaana aqoonyahanka lama yiraahdo liiska ma garatadu ku jira aqoonyahanka Ilaahay ba asteeyay amman huwa qaanitun ana al-layli saajidan wa qaa'ima yahdharu al-aakhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab aqoonyahanku waa ka Ilaahay ka cabsanaya habeenka saacadiisa istaagaya sujuudiyo waxa weeyaan duco ku jira alla ka cabsanaya aqoonyahanka rasmiga waa ka sifadaya tilmaanta kale iyo ma garatadu ma sibayeen ma sina idan jahligu wuxuu keenaa xumaan fara badan qofku inuu dabaasho waxyaabaha inagu soo nooleeyay waxa kamid ah iimaanka oo daciifa mar walo qofka iimaankiisu hoos u dhaco waa mar walo qofka xumaanta marka galitaankeedu ay fudaanayso ilaa waxa qofka xumaanta ka joojiya ama qabyaalad ha noqoto ama qulun kale ha noqotee waxa qofka qabtay xumaanta ka joojiya waa iimaankiisa ضعف الإيمان كمركا ويماده وحويان
qofku hore ayuu markaa xumaantu waa fududaanaysa waanu baariyooba iimaanku siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha inagu soo nooleeyay waxaa ka mid ah kursi jacaylka iyo xisaabta iyo siyaasadda ummaddii intaasoo qaybood baa ayay u qaybsantay markaasaa qoloba nin bay daba joogaan nin walba kaasuu xambaarsan yahay kaasuu sayid u haystaa deedna bahashii la yidhi waa la aasaya waqtiyadii hore ayaa la yidhi waa la aasaya show lababa aasina waa la soo qofo taasaa soo qoftay oo waxyaabaha soo qofay ee inagu soo nooleeyey taasay ka mid tahay maxaa yeelay adduunyo jacaylkaa ka mid ah oo iyaduna mansabkani uu ka mid yahay qofku markuu adduunyo raadis yahay waddo walba waxaa laga yaabaa inuu maro qof ilaahay u naxariistay mooyaane magac iyo adduunyo raadis ayaa waxa uu keenay inay soo noolaato bahashaasi oo mansabkaasi markaa waxooya uu ka mid yahay waxyaabaha inagu soo nooleeyay bay ka mid tahay mafaasid fara badan bay leedahay oo mafaasiddeeda waxaa ka mid ah isku xidhnaanshihii iyo walaaltinimadii dadka mu'miniintii inay googo'do ilaahayna wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay wada qabsada ha tafaraaruqina tafaraaruqu markuu yimaado dadku markaa waxa weyn haad iyo waraabaa ka dherga cadowgoodaa qaybsada cadowga lagu sheegayna waa cadowga gaalka markaad cadow maqasheed qur'aanka iyo sunnada ku maqasho dee cadowga gaalada laga warramaya mafaasidda ay leedahay waxaa ka mid ah in qofku markaa waxa weyn xaqa aqbali waayo oo xaqa iskala weynaado qabyaalo darteed inuu u diido waxa sugan gaaladii waaweyneed 3 nin oo ka mid ah inay dhageysteen nabiga calayhi salaam gurigiisa intii habeenkii soo daba joogsadeen waa Abu Jahl iyo labadii kale macruufka ahaa ayay quraanka dhageysteen waa dhageysteen markii dambe sarkeen bay waxay war dadku yanayna arkin ha ku soo noqon waaya nin walba habeenkii xaga ka soo gal habeenkii dambe dhig 3 habeen markay dhageysteen bay markii dambe Abu Jahl iyo mid kale ay wada sheekaysteen waa bal warram maxaan ka warrabaa buuri annagu markaa waxa weeyaan qabiilka nabigu ka soo jeeday intuu magacaabay wuxuu yiri laba reer oo tartamaan nahay hadday wax bixiyaan waanu bixinayna hadday dagaalamaan waanu dagaalamayna hadday deeq bixiyo laba reer oo tartamaan nahay maanta aanu ka aqbalnaa waxa weeyaan nabi baa naga soo baxay ma aqbalayno maxaa u diiday qabyaalad iyo qurun iyo xamiyatul jaahiliya ficil jaan baa u diiday inuu xaqa qaato idan mafaasidda qabyaaladu ay leedahay waxa kamid ah qofku inuu xaq aqbali waayo waa taa ninkii quraanka sida wanaagsan u akhriyay ama sida wanaagsan darsiga iyo tafsiirka u dhigay markuu dhameeyay la iswareystay ragga qaar isweydiiyeen wartalo uu ahaa ninkani waa reer herbel arintaas ninka dishay ajiib waha ka soco mafaasiddeeda waxa kamid ah waa dhufayska uu soo galo mid kasta oo liita dhufayska uu isku tuuro iyo salaanka uu fuula waa qabyaalada maxaa yeelay hareerihiisa la joogaayo rag baa laabta u tumaya adeer waa reer hebel ninkana annagana aragde annagana arag oo xaq iyo baadil qofka miyaa loogu hiilinaya miyaanu rasuulku oran calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka zaaliman aw madluuma walaalka u hiila haduu xaq leeyahay iyo hadii laga gardaran yahay markaas saxaabadu rasuulka waxay weydiiyeen yaa rasuul allah garanay hadii la dulmiyo haduu isagu gardaran yahay saan ugu hiilina gacanta ka qawlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ala macna alhadith kaasahi limaadu ka joog wartaa xaq uma lihid walilaahi ka cabso intay maanta taas shaqaysa intay qofka maanta gacanta la qabtaa oo la ka joog xaq uma lihita qowlka iyo ficilka xaq uma lihid imisaasan loogu durbaana tuba idan mafaasidda ay leedahay waxa kamid ah inuu soo baxo markaa qofkii oo yimaado ka waxa weeyaan uu dhufayska u galayo iyo salaanka uu soo fuulaya ay noqoto mid kasto markaa mujtamaca dhexdiisa doonay inuu fasahaadiyo salaanku soo fuula waa ka weey salaanku soo fuula waa ka weey waxa kamid ah mafaasidda qabyaaladu ay leedahay asbaabta u waaweyn ee fitanku ku aloosmaan waa qabyaalada weey marka meel fitna laga aloosayo waxa weeyaan sirdinka qabyaalada ayaa la kaciyaa furahaas lagu roga qabyaalada lagu roga inagu reer hebel hadaynu nahay taasa inaga maqano deedna waxa weeyaan xataa iska daa dadkii magaratada ahaa iska daayay waxa laga yaabaa qof dadku xaqiisaba ay eegayeen inay markaa xaween ay hoos marto oo waa kuwa Soomaalidu yiraahdaa fiqitolkii kama jannato fi caalamkii iyo wax fahamsana laftiisa inay hoos marto oo markaa waxa weeyaan furaha qabyaalada wax lagu rogo inuu isaga laftiisu markaa waxa weeyaan ay kiciso oo dibadna markaa xaq u weydaartaa suurtagal ah marka walaalayaal dadku waxay ku kala sharaf badan yihiin
إلهي أكتيس كوكا قيمة سيهين وحويا إيمانك يا الله كعبسك بدنا قف الدنيا ده معروف كأه أو أرنده معروف كأه أو لقى يا بقارة لها عالم كأن لقى يقانو لكن مجهول كأه إلهي سبحانه وتعالى حق السماء يملك إلهي أكتيس إلهي هاي نقدقه كوي أرنده يملك وحويا السماء ده وحويا وناك يا خير كوتشوجا وناك يا خير لقول المنصدو إلهي سبحانه